fiirinayna bal qofka loo baneeyay inuu afuro waa qofkee dadkee loo baneeyay inay afuraan bisha Ramadaan waxaa loo baneeyay afurka bisha Ramadaan qofka mariidka ah ee jiran qofku markuu jiran yahay inuu afuro waa loo baneeyay faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra aniga qofka mariidka ah ee afuray haddii qofku isagoo jiran uuna afurin oo uu iska soomo soomka hadduu raba dhibay uu iska soomo dee wax qadaa laga dooni maayo laakiin qofka jiran ee afuray ilaahay markuu caafiyo ayuu soomkii iska gudaya oo uu qadaynaya hadduu yahay qofkan jirani qof jiran aan laga bogsanaynin sonkor buu qabaa ma soomi karo hadduu soomo sonkortii baa dhacays naftiisiiba halis gelays qofka isaga wuxuu iska bixinayaa fidyu iska bixin qofka jiran ee aan soomi karin jiradiisuna ay tahay jira aan laga bogsanaynin qofkaas isagu fidyu iska bixinaya ee qofka qadaynayay waa qofka ilaahay uu ka caafiyay jiradii marka uu caafimaado ayuu isagu soomka iska qadaynaya waxa kale qofka musaafirka ah ee safar ku jira isagana waxa weeye inuu afuro ilaahay baa u baneeyay sharcigu wuxuu u baneeyay qofka musaafirka inuu afuro safarkiisu ama ha noqdo safar dhib badan ama ha noqdo safar dhib yar qofku marba hadduu musaafir yahay ruqsada ilaahay wuu siiyey wuu iska afuraya mar alla markuu dee safarka uu ka baxo ayuu bishii Ramadaan wixii dhaafay ayuu iska qadaynaya musaafirkana waxa weeye isaguna waxa loo ogol yahay inuu afuro waxa kale oo afurka loo ogol yahay haweeneyda xaamilada ah ee uur kale ama mid ilmo nuujinaysa iyagana waxa loo ogol yahay inay afuraan idan waxa is weydiin mudan markay afuraan haweeneyda xaamilada ah ee uur kale markay afurto soomkii miyay soo qadayn midda nuujini soomkii miyay soo qadayn markay afurto masaladaasi waa mas'ala culimada dhexdooda waxoogaa yar khilaafi ah laakiin markaad adilada fiiriso iyo nusuusta waxaa xoog badan oo kula xoog badnaan haysa islaanta xaamilada ah iyo islaanta nuujin inay fidye iska bixinayaan sidaasaa xoog badan gabadha xaamilada ah haweenka hadda culays baaba haysto oo mar walba waa mar ay nuujin hayaan iyo mar ay uur leeyihiin uun waxaa laga yaabaa ramadaankan inay xaamilo ahayd oo ayna soomi karin ramadaanka dambana way nuujin oo ma soomi karto ka dambana uur bay haddana qaaday ka kasii dambeeyana way nuujin marka wixii wuxuu noqonayaa culays buu noqonayaa haddii la yidhaahdo islaantu inta ay dhali iyo intay uurka leedahay oo dhan soomi mayso kadib bay soo wada qadayn waxaad moodaa inay culays tahay dee diinteennuna diin culaysba ma ah wax walba oo qofka culays ku noqon diinteennu waxa weeye way ka sarfisay marka gabadha xaamilada ah iyo gabadha nuujin fidyay iska bixinayaan fidyo ayay iska bixin Cabdullaahi ibn Cabbaas sidaasuu ku tegey Cabdullaahi ibn Cumarna sidaasuu ku tegey isaguna labadaas saxaabiba waxay ku tageen gabadha xaamilada ah iyo gabadha murdicada ah inay iska bixinayaan fidyo iska bixinayaan nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallama inna allaha wada'a 'anil musafiri nisfa salati was-sawma wa 'anil hubla wal murdi'i bu nabi alayhi salatu wasalam hadith Anas nabiga uu ka wariyay hadithkaasina sanad ahaan waa saxiix macnihiisuna waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala qofka musaafirka ah wuxuu ilaahay ka dajiyay nisfa salaada rubaaciga ah laba ayuu iska tukan labadii kale ilaahay baa ka dajiyay soomkiina ilaahay baa ka dajiyay qofka musaafirka ah oo isaguna ma soomayo laakiin musaafirku inuu soo qadayn hayo nas baa sheegay